السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما صاحب يلكسو دوادا حلقات كلا وكمل حلقة ذي هي مرتدى مان قدل ما أنت حلقة دي نوحي نوجو مرتيا ولكن مصطفى محمد خيره مصطفى وحكم دي بهذا حسيسة آخر إسكا قرالك هدينا نورم بوحكم دي هرمودك بهذا سي موضوع ما أنت حلقة دي أي حوج سار دون تروح نقول دونا فايدوينك وآخر سؤالي هي بالشدة أنت أنا سيدح كين فاهمت أي نسود وين مصطفى سود وكل سود حلقة ما صنت ردوه هذه أدوه ما صنت markale aad iyo aad u mahadsan sidaad nooga ajiibtay inaad xalqadan nagala qayb gasho runtii mowduucan akhrisku guud ahaan waa mowduuc aad iyo aad u ballaaran in siyaabo kala duwan ama meelo kala duwan laga eegana runtii ay tahay aanoo ka sii hordhacaynin bal mowduuca guud iyo waxyaabaha kale su'aalaha kale ka iman karana waynu sii dhexgeli doonaaye maxaad is leedahay akhrisku faa'iido intee leeg bulshada ugu jirta marka maxay akhriska la xoojiyo ama akhriska guud ahaanba صح بسم الله الرحمن الرحيم horta marka hore aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa madashan maangodol oo runtii aanu arkay inay ka mid tahay madalaha tirsan ee lagu falanqeeyo arrimaha bulshada oo ah faa'iidada marka hore waan idinkana waa idin mahad celinayaa dhamaantiina runtii aad baan idinku mahad celinayaa Ridwaan iyo Liibaan iyo Guuleed iyo Cabdifataax oo inta badan ay sheekaduna dhex mari doonto sida aad sheegtay mawduucan maanta waxa weeye faa'iidada akhrisku u leeyahay bulshada inagoo ka eegi doona heer bulsho oo aan ka eegin heer shakhsi inkastoo sideedaba bulshadu ay tahay shakhsiyaad isku yimid haddana halka aynu diiradda saareen waxa weeye guud ahaan bulshada muxuu akhrisku faa'iido u leeyahay runtii waxaan oran karaa akhrisku faa'iidooyinka uu bulshada u leeyahay waa faa'iidooyin aan la soo koobi karin oo aan la tirin karin faa'iidooyin aad u tiro badan ayuu akhrisku bulshada u leeyahay akhrisku waxa weeye waa furaha aqoonta waayo bulsho waxay wax ku tahay aqoontuna waa furaha nolosha marka mar haddii ay aqoonta furaha nolosha tahay akhriskiina uu yahay furaha aqoonta waxaan oran karnaa akhriska laftiisu waa furaha nolosha muhiimadda uu akhrisku inoo leeyahay inagoo aan meel fog ka eegin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu waxyiga ku soo degayay ereygii koobaad ee waxyiga ku soo degay wuxuu ahaa iqra oo ah kelmad af carabiya oo macnaheedu tahay akhri marka taas waxay noo muujinaysaa ilaa xad muhiimadda uu maaragtay akhrisku uu leeyahay waxaan odhan karaa akhrisku wuxuu kor u qaadaa wacyiga iyo xadaaradda bulshada waayo isku mid maaha bulsho ay dadkeeda badankeedu wax akhriyaan iyo bulsho aanay dadkii yani xubnaha ka tirsan badankoodu aanay waxba akhriyin waxaana la odhan karaa ama daraasadaha dee la sameeyo dhan ay muujinayaan bulshada ay ka akhris badan tahay runtii way ka waaya aragnimo badan tahay bulshadaasi civilized bay noqotaa way ka xadaarad badan tahay way ka hal abuur badan tahay way ka maskax badan tahay way ka dulqaad badan tahay oo waa bulsho aqbali karta kala duwanaanshaha fikradaha iyo kala duwanaanshaha dadka yani nooc kasta oo ay yihiin marka yani faa'iidooyinka si guud haddii aanad muxuu ahaa su-aal labaad igu celin waa ay badan yihiin waxaa ka mid ah soomaalida lafteedu ma odhan karno waa laga yaabaa waanay tahay inaan ahayn bulsho wax akhriska ku fiican laakiin ma odhan karno maaha bulsho og faa'iidada akhriska tusaale ahaan soomaalida waxay tiraa saddex baa la wareystaa waxaa la wareystaa number 1 bay dhahaan waxaa la wareystaa guud ku ciroole iyo adin ku ciroole iyo uur ku ciroole oo markaa mid walba looga jeedo maxaa looga jeedaa markaa mid walba waxa looga jeedaa tusaale ahaan horta saddexdu waxay ka siman yihiin inaad macluumaad hesho laakiin saddexda qofeed macluumaadka kala helayso ayaa kala duwan tusaale ahaan guudka ciroole waa in qof da' oo gaboobay 100 jir ama 80 jir ma kaba badan sida xaaj cabdiwaraab oo kale marka racaanadu kuma jirto iyadu racaanadaasoo kale kuma jirto marka in la yiraahdo nooga waran nolosha 100kii sane aad soo jirtay waa aragnimo qaab lagu kasban karo mid kalena waa adinku ciroole ama Soomaalida waxay tiraa dalmar
markaa wadamo tegaya East Africa tegaysa Europe tegaysa Mareykan tegaysa Australia tegaysa markaad soo noqoto waxaan ku aqoonsanaynaa tahay adinku cirolo waxaan ka wareysanaynaa bulshooyinka kala duwan ee soo aragtay marka nimaan dul marin baayana kan oo ah kaanu soo socdo ka ugu muhiimsan waxa la yiraahdaa uurku cirole uurku cirole waa qof yani wax akhriya daadiisu yar tahay haday doonto laakiin aad wax akhrista marka maahmaahdu waxay aad u dhiiri gelinaysaa in uurku ciroolaha aad loo wareysto labada kale mar walba la heli karaayo waxa laga yaabaa in badan laakiin kaasi in lagu xoog la saaro waxaan laga weydiiyo waa sidaas waanu laga yaabaa kana waa aragsan yahay boqol jir aan waxba akhriin waxa laga yaabaa 30 jir kun buug akhriyay inuu ka xog badan yahay marka saas horta Soomaalidu waynu dareensanahay faa'iidada uu maaragtay uu akhrisku inoo leeyahay nin la yiraahdo George Martin oo ah qoraacana ayaa isna wuxuu lahaa qofka aan akhriin waxba akhrisan waa qof hal nololad nool ama 60 sano ah ama laakiin qofka wax akhrista waa qof kun nololod nool oo waxa weeye haddii aad kun sheeko kun buug ka akhriday oo kun ka sheeko kun dad oo kala duwan ay ka waramayeen waxaad ka dhigan tahay kun nololod inaad maaragtay soo noolada ama kun meelood kasoo kala noolada xilliyo kala duwan iyo goobo kala duwan waa sidaas way haddii haddaba faa'iidada intaa leeg ay akhriskii bulshada u leeyihiin bulshooyinku aad iyo aad bay u kala degsan yihiin wax akhriska bulshada heer bay ka taagan tahay marka wax akhriska iyadoo kulba laga dheehanayo siday u dhadhansanayaan faa'iidada akhrisku kullee u leeyahay sax markaad adigu eegto bulshadeenu heer intee leeg ay ka taagan yihiin bal akhriska markaa sax aad baad ma sadacad sax inta waxaan ka yar horeysiin lahaa iyagana maaragtay dhowr faa'iido kale ayaa akhriska bulshooyinka ugu jiri kara wax waliba aan ahayn wax aynu malaynayno wax daraasada lagu sameeyo la xaqiijiyay waxa kamid ah caafimaadka bulshooyinka wax akhriya way ka caafimaad fiican yihiin bulshooyinka aan wax akhriyin oo taas ayaa bay halkii waxa la yiri horta cudurrada meesha ay ku nool yihiin ka jira ayay si fiican u bartaan way akhriyayaan haddii iyaga cudur gaar ah oo asiibana way akhriyayaan oo cudurkaas sidii loola tacaalayay ayay baranayaan bulshooyinka wax akhriya way ka dhaqaale badan yihiin bulshooyinka wax akhriya iminka marka in dhagaska dhaqaalaha saa loo dhigo xidhiidh baa laga dhaxaysiiyaa heerka akhriska bulshada iyo heerkooda ay wax ku curinayaan ama ganacsi ama maaliyad marka xagga dhaqaalaha laftiisu si dadban uu maaragtay akhriskan ugu fiican yahay xagga isfahanka bulshada iyo xalinta khilaafaadka uu ka qayb qaataa wax akhrisku oo bulshada wax badan baa ka dhaxeeya taariikh baa ka dhaxaysa dhacdooyin baa ka dhaxeeya dhaqan baa ka dhaxeeya siyaabaha la isugu gudbin karo hadalka marka laga yimaado qoraalka ayaa kamid ah haddii mushkilad ay timaadana dawal la Google gareynayo waxba marka xataa xagga khilaafaadka bulshada qaybkay haddii aan marka u soo noqdo haddaan si sax u fahmay su'aashay dambe ahayd heerka inagu akhrisaanaan taagan heerka adduunku taagan yahay runtii su'aashay nooga horeynaysa waxay tahay oo taa ku xiriirsan horta heerka awoodda dadka u leh awoodda inay wax akhriyaan ama aanay wax qoraan waxna akhriyaan oo halka ugu hooseysa aqoonta literacy bulshadeena waxa la oran karaa ama daraasadihii ugu dambeeyay Soomaaliland lagu sameeyay boqolkiiba 50 ama wax ka yar ayaa horta literate ba waxna akhri kara waxna qori kara boqolkiiba 50 waxna ma akhriyaan waxna boqolkiiba 50 waxna ma akhriyaan waxna ma qoraan akhris markay timaado boqolkiiba 50 ka wax qora waxna akhriya waxa laga yaabaa inay qaar Soomaaliga uu ku kooban yihiin marka halka waxa ka baxaya akhriska wixii aan Soomaali ahayn oo dhan baa meesha ka baxay boqolkiiba fara badan baa inta la kacaysa marka inta haddana yar soo hadhay waxaan waxa laga yaabaa inay iyaguna wax akhriskooda marka waxaan oran karnaa يعني inagoo aan qodobka daraasad sugan u hayn waxaan isla oran karnaa boqolkiiba 20 ama ka yar ayaa Soomaalida wax akhrida xagga bulshooyinka adduunka imika tusaale ahaan oo kale South Korea oo kale waa boqolkiiba 100 waa boqolkiiba 99.9 dadka wax bartay
xagga inagu boqolkiiba konton ka yarna marka Suudaan taa inoo dhow baa ina dhaanto 175 oo iyada lafteedu aad inooga sareysa marka bulshadeenu waxaanu ku jirnaa bulshooyinka taxadka yaal xataa mustaqbalka World Bank Somaliland 2014 ka sameeyay Somaliland waxa wuxuu isbarbar dhigay Ethiopia iyo Somaliland wuxuu Somaliland imikuun ma xataa mustaqbalka waxay ahaanaysaa in muddo ah wadamada literacy-gooda ama aqoon dadkooda waxbaranaya hoose waayo halka Somaliland yani boqolkiiba 36 aan filayo inay yihiin dadka muxuu ahaayay boqolkiiba around roughly 50 ay yihiin dadka la qorayo iskuulada imika Ethiopia boqolkiiba 68 baa la qoraa haddaynu isku mid ahaan jirnay markii hore iyaguna ay ahayn dad aan aqoon lahayn way naga goosanayaan mustaqbalka wadamada kale adduunkana hadalkooda bada marka halkaasina horta ka taagana marka hadii aad si kala saan fahmay hadaynu ugu cilmo mar labaad macnaheedu 150 kaasi waa kicinti waa kicinti qoraalkii guud ka sheekeynaya kan u jeedna marka ma ahaba waa basic wey marka heerkan qoraan akhriskan ka sheekeynayna imika faa'iidadiisa aad nala wadaagaysa runtii percentage aad kan uga yar ilaa 20% man saga qiyaas kana oo hayna daraasad sugan laakiin yani qiyaas ahaan markii wax isku geeyeen hadaba marka soo eegto waxa meesha ka soo baxaya heerka aynu ka taaganahay iyo waxa weey meesha waxa moodaa in laga dhadhansan karayo in caqabado jiraan ama dadkan wax ka hayay jiraan muxuu ahaa inay wax akhriyaan sax weyn maxaad is leedahay caqabadaha bulshadeena ka hortaagan wax akhriska inay ka mid noqon karaan waa runta weey hadii waa su'aal muhiim ah dadkii waxna qori kari waxna akhriyay maxay wax akhriyay laayeen caqabada dhowra jira horta number 1 waxaan jirin dhaqan akhris oo waxa weey la inaguma soo barbaariyo xaafadaha aynu ka soo baxnaa waxa laga yaabaa inaan maktabada lahayn ama sharaf buugaago dhowr buug halka yaala waalidkaaga waxa laga yaabaa inaan intii aad yareed kugu soo korin in waqtigaaga toddobaadkii waqti kamid ah aad wax akhrido waalidkaaga laftiisu inaanu dhaqan wax akhris lahayn waalidkeena laftiisu ayaa laga yaabaa marka horta number 1 waxaan meesha jirin dhaqan wax akhris waana sababtii ay imka kacdoono kooban oo maangodol ay ka mid tahay kooxdiinani oo barnaamijkan anagu bilownay Hargeysa Readers Club oo kale uu ka mid yahay bandhiga iyo carwooyinka buugaagta oo kale ay ka mid yihiin yani dhaqdhaqaaqyada ay waxay dareemayaan ama ay u bilaabmeen waxa weey dhaqanka akhriska in la abuuro caqabada yani laga jawaabo hadii aan dul istaagno inta aan ka dhex galanay waxa xasuusay Hargeysa Readers Club marka waran duruufta marka aad ku bilaabayseen Hargeysa Readers Club iyo hamigeedu ku jiray iyo wiciga marka akhrisku taagnaa guud ahaan iyo maanta oo sanadaad far badan runtii ay soo bedeleen iyada lafteeda xagga heer haddaan ku celino runtii marka aan si daacad oo hadlo waxaan oran karaa Hargeysa Readers Club baraarug akhris oo bilow aad u wanaagsan uu bilaabay waqtiga runtii wax akhrisku bulshada dhexdeeda qadiyad ka dhex taagan oo laga sheekaysta muu ahayn marka waqtigii aan bilownay oo 2006 ahayd 12 sano ka hor waxaan ku bilownay maadaama buugaagta qorayaasha Soomaalidu ay soo bandhigaan iska kooban tahay xataa waqtiga kompaniyadan ma jirin sagal jad asal de kompaniyadan maanta inoo taabamay jirin marka buug u baahantay waa ninkii qorayo dibadda joogay iyo la xiriiro aad muddo sugto marka buugaaga Ingiriisian ku bilownay kuwa Carabiga internetka laftiisuna de maanta sida wuxuu jira in wax laga baaray iyo wadaay iyo lama lahayn dial up yaro dharrag ilaaba jiray oo de ku niyad jabinaya marka waqtigaas waxaad caqabad waxaad sidee loo heli karaa horta buug la soo jeedo dad xataa ku dhageysta maanta hadii la meel baa buug lagu soo bandhigo la soo buuxiyaa de waxay nagu qaadan jirtay inaan aad soo abaabulo oo balan barno waxaan macaankiisa marka mid waa dhaqanka caqabadihii caqabad kale waxa weey luqadaha shisheeye oo aynaan aqoon u lahayn isla markaana aynaan dhiiri gelin taas oo aan u arkay inay khalad tahay af Soomaaligu markaan runta aynu ka wada hadlayno aynaan isfaaninayno maaha af weel aqooneed ah maanta berrito Allahu a'lam waa af ku kooban inta wada nool inay ku wada xidhiidho haddaad dhakhtarnimo baranayso af kalaad ku baranaysaa nimankiina injineerada wada af kala injineernimada ku soo barateen marka afkeeni maadaama aanu ahayn af aqoon sida
oo aqoonta badankeedii ingiriisi iyo carabi iyo meelaha qaar soomaalida ku nooshahay faransiis oo kale ay ku jirto waxay ahayd in dadka lagu dhiirigeliyo dee inay afafkan aad ay u bartaan marka waxa weyn dadka luuqadaha yaqaan baa yar dabeedna qofka Soomaaligii kuma hagar baxayo buug carabi ama ingiriisi inuu akhriyo sababtoo ah aqoonta uu leeyahay marka uu ku caadsan yahay marka luqadeedba marka halkii yaala jira meesha sidaas mar hadday taasi jirto waa inuu af Soomaaliyo kaliya akhriyo af Soomaaliga waxa ku qoran baa kooban marka taasina waa caqabad xagga luqado caqabad kale waxa weeye helista buugaagta walow imika ay wax soo yara bilbilaabmeen haddana maktabadana may jirin kuwa jaamacadaha wax la yiraahdo textbooks ama buugaagta arday wax ka bartaan wuxuu ahaayay buugaagta meelaha lagu iibiyana waxa ku xiriir la lahaayeen buugga la iibsanayo oo buugaagta meelaha laga iibsan laakiin buugaagta cilmiga ee loo baahan yahay haddaanay dadka badankiisu iibsanayno kaligaad iibsanayso ma keenayo qofkii marka yari tirada buugaagta oo yar iyaduna waxay ahayd maaragtay caqabad xiisa ayaa isna yaraa ilaa imikana yar waxaad isweydiinaysaa war Soomaaligii haddii aanu ahayn af cilmiga badankiisii ku qoran yahay qorayaashu maxay xiisa u abuuri lahayn af Soomaali ilaa wax badan oo laga hadlo ayaa jira haddaad sheeko mala awaala qorayso oo xiisa loo abuuri karo haddaad war qorayso oo jaraa'id tahay waa inaad xiisa abuuri karta haddaad website-tooda waa inaad xiisa abuuri karta marka welina awoodda xiisaha lagu abuurayay imanka haddaad website booqato jaraa'id akhrido buug Soomaali akhrido waxaad dareemaysaa inay yacni aan waqti badan la gelin oo ay xiisihii u abuuri lahaa xiisa ka yar u abuurayo taasina ay marar qaar keento maxaan ka akhrinayo waxba maradan aanan ka faa'iideyn marka xiisuhuna uu yar yahay iyaduna halkaa waxba ka yar jira waxaan ku soo ugu dambaysa caqabad aan inaga inagu hayno laakiin isna jirto inaga aan lagu badnaa waa mashquulka dadka aadka u shaqeeya haddana iyagu ugu talagelin waqti u abuuraan oo aanay odhan wiigii waxaan rabaa inaan inta dhameeyo qof yoon waqti gaar ah u xadidaynin akhriskiisa iyo lafteedu waa caqabad markaa muxuu ahaa meelahaas soo kordhay ka waran haddii aynu dhinaca kale ka eegno oo inta aad sheegtayna aynu ku sii darno oo dhinac la xiriiraysa uun helidda buugaagta xagga qiimaha laftooda lagu helayo buuga xataa haddii dalku yimaadaba qiimaha laftiisu macquul ma tahay inaan odhan karno wuxuu xayndaab ku yahay haynta dadka xiisayn lahaa akhriska baraka qaarkood waa run waayo maadaama nahay dee bulsho dhaqaalaheedii iska hooseeyo dabcan qiimuhu laakiin waxaan isleeyahay caqabad asala maaha caqabad way noqon karaa marka waxay noqon kartaa mid marmarsiyo u yara badan tahay way buugga af Soomaaliga Hargeysa qaar baa $20 lagu iibiyaa ka Carabigana waa 20 kaasu ka Ingiriisigana waa 20 kaasu wax aan kaasu ay kala badan yihiin ma jirto laakiin haddii dee maktabada la furi lahaa oo imika kale heemo kale waa maktabada Hargeysa ku soo korodhay marka qaar marka tagto buugaag badan oo aad way jirtay baad ka heli kartaa hadday soo bataan dee baahida noocaas ayaa badanaysa waxa lagu yiri maktabadaha qaar oo magaalada ka jira lafteedu qaar baa businesskiiba ka yar baxay ujeedooyin gaar ah waxyaabo gaar ah oo la keenaa taasna caqabad bay noqon kartaa waayo dad maktabad furato cilmi oo dhan waa inaad soo dhigtaa ma aha inaad cilmiga kala qabyaaladayso aad marka waxyaabo caqabadaha kuwaasan yara odhan lahaa waa sidoo kale muxuu ahaa kulligood way badanta dhexgalkaygu inaan sheekaysano muhiim helitaanka la heli lahaa rugog kutubi taallo oo maktabada oo dalkeena aan aad uga hana qaadin lafteeduna waxay qayb ka sii noqon kartaa un waxa caqabadaha aynu sheegayno aad iyo aad runtii markaa waxaad moodaa in mar laba haddaan xiriir ka dhexaysiino wax akhriskii iyo caqabadaha aynu hortaagan mar labadan ku noqono indhigitaradii marka dhawaa sharaxaysay xagga dhaqaalaha ka taaganahay iyo xalinta khilaafaadka ka taaganahay iyo caafimaad ka taaganahay in mar labaad haddana wax akhriskii dib loogu celin karayo heerka iyo aynu taaganahay caqabadahaas runtii ay yihiin kuwa dhinacan kalena hortaagan waa sidaas kolley marka caqabado timaado waa in loo fikiraa sidii xal loo heli lahaa lagaga baxo maxaad isleedahay bulshadeenu caqabadaha intaa leegee akhriskii ka hortaagan way kaga bixi karaan waxaan isleeyahay halka wuxuu noqonayaa horta kow inaynu bulshada lagu abuuro inay wasaaradda waxbarasho hadday tahay iyo hadday jaamacadaha tahay iyo hadday bulshada caadigaaba tahay
waa in horta dadka lagu abuuro xiise iyo dhaqan wax akhris allah yarxam raaximina gaariye macalin gaariye oo kamid ah dadka aqoontooda aadka u durugsan tahay ayaa wuxuu ku oran jiray ardayda ha noqon qof aqoontiisu tahay vertical kaliya aqoontaadu qayb horizon talana waa inay yeelataa oo macnaheedu yahay waad noqon kartaa yani qof neeras dhakhtar specialist maxay aqoontada takhasus yar oo dee waana muhiim oo dee waxa ku xidhan inaad shaqo iyo dhaqaale hesho laakiin taa ha isku koobine waa inaad sal la yeelataa ballaaran oo ah inaad wax akhrido oo haddaad dhakhtar tahay dhakhtar adduunyadii la socdaa tahay haddaad injineer tahay injineer yani adduunyada la socdaa tahay haddaad jiifana waxa taasoo mawduuc aad wax ka ogaato waka dunidan waxa ka socda haddaad wariye tahay qofkaad wareysanayso waa inaad adigu ka xoog badnaataa oo dee aqoontaada aqoon ballaaran muxuu ahaa ay noqotaa marka horta waxa weeye mid waa kaayo waa in dee dhaqan iyo xiiso akhris la abuuraa qodob labaad waxa weeye waa inaan dhiirigelinaa barashada luuqadaha aad baan qodobkaa u adkaynaya waayo jaamacadaheenna Hargeysa Amuud Goolis Armas way badan yihiin dhowr iyo 30 af Ingiriis wax ku wada dhigaan marka laga reebo kulliyado kooban oo af Carabiga oo xagga diinta la xiriira iyo xagga luqadda Carabiga iyo waxyaabaha sharciga laakiin badankooda jaamacad kaliya oo leh kulliyad luqadeedna ma jirto shay isku qabanayaan marka cilmigii aad dadka baraysay qalabkii aad ku baraysay uma diyaarin marka waa wax isburinayaan marka horta waa in dadka lagu dhiirigeliyo luqada ma aha inaan luqadeena waynu jecelahay ma aha inaynu ka tegino dhaqankeena ma aha inaynu ka tegino laakiin waa inaynu wax soo kororsanayno oo aqoonta duniduna dheerta aynu keensanayno waxba la isweydaarsanaya inta marka taa luqaduna waa hal ka mid ay noqon kartaa haddii af Ingiriisiga si fiican qofkii loo baro buugaag af Ingiriis bari takhriya haddii Faransiiska si fiican loo baro kuwa Faransiisu bari takhriya Carabiga oo isagu faa'iidada u haysta ay tahay diintii oo ah dee luqadda ay diinta ku kaydsan tahay faa'iido weyn buu haystaa laakiin waa in faa'iidada dee waa in la xoojiyaa faa'iidada oo haddii lagu soo qobo luqaddii Carabiga luqad diinta oo keliya ku kooban oo cilmigii maadiga aan la falgelin hadda kadib luqaddaas dee waa laga sii kordhin kari lahaa inta marka luqaduna waa mid waxa kaloo iyadna ah tayada maktabadaha maktabadaha qaabka ay u shaqaynayaan ma aha maktabado wax iibinaya inay noqdaan waa inay maktabado mar walba laga fikirayo sidee qofkan markuu soo galo haddaad imika gasho supermarket ama bacadle wuxuu ka fikirayaa ninkan jeebka lacagta ku jira sidoo kala baxda maktabaduna waa inay ka fikirtaa qofkii ku soo galay isagoo ama aan buug la bixin ama aan meesha buug ku akhrisan waa inaanu kaa tegin marka maktabada in la yara cilmiyeeyo la badiyo xaggaana waa mid lagu xallin karo bulshada aad loo eego deedna laga qabtiro marka xagga maktabadaha marka waa sidaas runtii tayada waxa qoran dadka af Soomaaliga wax ku qoraa way bateen waa faa'iido waa wax soo kordhay laakiin tayadoodu way hooseysaa mar hadduu tayada hooseeyana dee waxa weeye muddo markuu bato heer laga xiisa dhacaa iman kara laakiin haddii tayadii la kordhiyo oo way fiican tahay inaad buug soo saartaa laakiin waxa ka sii fiican buug aad u wanaagsan inaad soo saarto ayaa ka sii fiican marka taasina waa wax lagu xallin karo ugu dambeyn waxaan ka bixi lahaa in xaafadaha iyo qoys walba ardayda iskuulka inoo tagta mar haddii arday iskuulka inoo tagto حتى هذي بواك لو بواك تدون كبر لاس ما يلا جو أوروليو بالاسي برا مكتبات يوم مال وحلوة أخذت جوري والبيني أخذ كل كاسب لعبة كل كاسب لعبة مرة وعم كسوق بجبين مرة هذي اللي أوجادي بولشة كأخذ سبحان تاني كهرمر في عنتها دواء إنه نلا بعدنا استراتيجية هي وآخر سكلو جاري ما سيقول بدلو آد يا دوسو بدك تبي حوي مبوها يعني مصطفى جودهان فايدين كآخر سكلو شيء نقوله هي maxaad is leedahay guntiga gabagabada barnaamijka waxaad kula talin lahayd bahda maangodol iyo akhyaartooda labidka ah ee goobaha kale iyagu dadaal ka wada guudaha horta runtii maangodol aad iyo aad baan muxuu ahaayay u daawada barnaamijyadooda waxaan maleen dhowr iyo 10 xalqadood meelahaas aad marinaysaan waxaan u arkaa maskax loo baahnaa oo aad loogu baahnaa oo ah mowduuciyad ka hadashan
mawduucyada bulshadu markay ka hadlayso haddaan si cilmiyeysan looga hadal dee wixii iska qof walba waxay la tahay buu noqonayaa marka inaad sidaa u budlisaan ood u jajabisaan horta waxa weeye waan aad baan idinku ammaanay barnaamijka haddaad qaybo qoraala ku dari kartaan oo marka kulan la qabto haba yaraatee hal page oo qoraalna aad ka soo saari kartaan waa wax sii fiican oo aad isa sii habaysaanoo website yarna aad samaysataan ama Facebook page oo qolada aan muxuu ahaayey waxba daawanay wuxuuna ay idinku soo beerto dhaqdhaqaaqyo laga yargaabiyey baa jira naadiyaasha akhristayaasha oo annagu aan kow ka noqonayno annagaa bilownay annagana ugu يعني هذا بربله في عنور دي لقى الشغل قاطين وقتلمتي إمباك أدو في عم بسميس إمباك مركل لقاها اللي إمباك ونكسن بسميسين أو أحيانا آخر كلا حديدا بندقة دبوا وأحيانا هنودن حاجة سكسوش ذا القاطين لكن هذا نين لسي وضو أو محوها إن شاء الله وحنا سمين دون هذا نحتاجه عاد سنين نكوريج نتشيل يجو سي وضع كرايا لبن مجاله إما إلا صدق مجال أكتف بكسي برعة كلها الكران وأد وشقيا جيبي لي لفت ويرى صفة عم بوشقيا وكأكتف سنة كهرجيسة تيم عدري لي ديسكراب مسك حمال أو يسوونه هاكي لبعض النبوس وحجي وجونا وينا لبعضها مركا لكن وحنا رنك على بدن كودي أوس بس عطان marka dadaaladaasi waa siyaasadda dawladeed ayay marka waxaan maqlay in wasaaraddu hadal hayso sidii waxaas mar hadda iskood isku bilaabeen ayadu u noqon lahayd cidda weelaynaysa ee si dhiirigelinaysa si wadsan oo war wanaagsan haduu warkaasi jiro uu soo gaaray waxa iga xawisiin taladan runtii inaan qaadana waa muhiim oo bar Facebookna waxa weeyaan waanu leenahay laakiin waxaad moodaa inaan isticmaalno sidii YouTube kuma moodaan isticmaalno waa daliil runtii aan leenahay ay tahay runtii inaanu ka fikirno sidii loo dardargelin lahaa qoraalkayga iyo guud ahaan aad iyo aad dad maadsan tahay Mustafa Maxamed Khayre oo maanta martii noogu ahaa xalqadeenan martida Maangadol runtii waqtigan ka qaadanay waxaan isleenahay waxa ka faa'iido badan doonta maanta inta aad noo sheegtay bulshada gaari doonta markale aad iyo aad dad maadsan tahay inta ma uu gaajaysan yahay guul waa wali